kastaba laga mamnuucay. war heede waa labada canshuurta laga qaadabe jidkaasi muxuu ahaa? waa jidka canshuurta laga qaaday labadaas bullet proofta lagu iibiyey ay ku dulluudo. oo waa jid nuucee ah? waa jidka askariga taagan iyo askariga jiifa lagu safay. war yaa tan oo kala arkay. war jidkaasi dhib badana. war allah ku soo sahlee soo soco. yaab iyo lama arag ma yaabo waa rabbiye maxaa kugu dhacay? walaalow jaamacadda carabta in lagu daray waa ogeene mana laga saaray. war waa ka midnahay shirarkooda waxba ka soo bixinna waa ka qayb galnaa. intaan burburka iyo dhibaatada ku jirnay maxay noo tareen? wax tardaaya tarxiil bay noogu dareen. waayahay markaan maanta madaxa soo taagnay maxay taa ka noo saareen? war noo turi maayaan. talaxumadeenna iyo tawfiiq la'aanteennana waa ka faa'iidaysanayaan. walaalkaa tabar yar waa la taakuleeyahay ehelnimadii ma tuureen. war wehel iyo walaal ma leh. dhibaatadana waxaa noo keenay khilaafka iyaga ka dhex taagan. war annagay teenuna haysataaye maxay noola soo doonteen khilaafkooda? war damaceenna doqonnimadeenna iyo damiirxumadeenna ayaa noo keenay dulmigooda. war dollar ayay nagu waaleen. diidna ma dhihi weydeen. dantoodu inaan kala daadana sow maahan. dumi xal maahae maxaa noo dana? imaaraad hana daayo danteenna uma imaane. markii horeba masayraa keenay. waa yaab iyay ka masayreen. turkina war ileen ma fiyooba. masayr waali ahaa. carab masayra imaan ma leh. maantoy dhexdoodii war maa isla dhacaya dhinaca sacuudiga ragga qadan haddaan marin bal maxaanu dhibayo laygu dharanaya. mar kale ku celi. war bal ii warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been? run baan rabaa beenraad ma leh. kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba. bismillaahi raxmaani raxiim. habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiya caawa kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo maanta dib ugu laabtay xafiiskii ugu shaqayn jiray ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya. ciidamada jubbaland iyo al-shabaab oo ku dagaalamay deegaanka qooqaani ee gobolka jubbada hoose. al-shabaab oo sheegtay inay la wareegeen fariisin ay ciidamada jubbaland ku lahaayeen deegaanka qooqaani. qarax sababay dhimashay dhaawac badan oo ka dhacay deegaanka mooyaale. muddo kadib madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo xildhibaanada maamulkaasi oo maanta safar dhulka ku maray waddada isku xirta jawhar iyo muqdisho. maamulka galmudug oo sheegay in al-shabaab ay ka saari doonaan deegaanada galmudug kadib markii maanta dib loo furay waddada isku xirta dhuusamareeb iyo ceelbuur oo ay maamulayeen shabaab. iyo baarayaasha kiimikada oo waa loo oggolaaday inay baaraan Syria. hormuud telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. hormuud telecom u doono internet xawaarihiisu sarreeyo. adna qaado hormuud saaxiibkaana u qaad. waa habeennimo talaado ay ka baxayso arbacana ay soo gelayso taariikhdan waxay ku beegan tahay 17 bisha afraad sanadka 2018. axmed maxamed ibraahim ayaa faahfaahinaya. aad baad umahadsan tahay cali ibraahim cabdullaahi. bismillahi raxmaan raxiim. dhegeystayaal kusoo dhawaada warkadii aad maqasheen oo intii hore kasii faahfaahsan. madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay xafiiskii uu ku shaqeyn jiray ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga. maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay xafiiskii wasaaradda gaashaandhigga uu ku shaqaynayay muddadii ugu dambeysay. madaxweynaha oo horey loo shaaciyey inuu shaqadiisii u wareejiyey wasaaradda gaashaandhigga ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey
dib ugu laabtay xarunta madaxtooyada soomaaliya si uu usoo afjaro khilaafkii ka taagnaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. madaxweyne farmaajo kulaabashadiisa wasaaradda gaashaandhigga ayaa muujinaysa culayska uu saarayo howlaha dib u habeynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama dowladda imaaraadka carabta ay shaacisay inay joojisay tababarkii ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kadib markii uu soo kala dhex galay xoogaha madmadow ah xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo imaaraadka carabta. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa horay muddo bil ah ku shaqeeyey wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya, halkaasi hoy iyo xafiisba uu ka dhigtay. dowladda soomaaliya ayaa qorsheynaysa in dagaal safmareen ah lagu qaado al-shabaab, kaasi oo dalka looga saarayo goobaha ay kaga sugan yihiin. ciidamada jubbaland iyo al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanka quuqaani ee gobolka jubbada hoose. sidoo kale al-shabaab ayaa sheegtay inay la wareegeen fariisin ciidanka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka quuqaani. cali ibraahim cabdulaahi suxayfa ayaa murahan inoo soo koobaya. waxaa warar dheeraad ay ka soo baxayaan dagaal ka dhacay deegaanka quuqaani ee gobolka jubbada hoose, kaasi u dhexeeyay ciidamada maamulka jubbaland, kuwa kenya iyo al-shabaab. dagaalka ayaa la sheegay in muddo saacada uu socday, islamarkaana uu khasaaro badan uu ka dhashay dagaalkaasi. dagaalka ayaa labada dhinac waxay ka sheegteen guulo. al-shabaab waxay baahiyeen inay la wareegeen fariisin ciidamada jubbaland iyo kuwa kenya ay ku lahaayeen deegaankaasi, islamarkaana ay jibiyeen ciidamadii halkaasi joogay, khasaaro badanna ay gaarsiiyeen. saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhankooda sheegay in weerar ay soo qaadeen al-shabaab, iskana difaaceen, khasaaro badanna ay gaarsiiyeen sida ay hadal ku dhigeen. ma jirto cid ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijin kara khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaasi. ciidamada jubbaland iyo al-shabaab ayaa marar badan waxay ku dagaalameen deegaano hoostaga magaalada kismaayo oo ay ka mid tahay deegaanka buloguduud iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose, halkaas oo khasaaro badan kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay. qarax sababay dhimasho iyo dhaawac badan ayaa ka dhacay deegaanka mooyaale. cabdiqani cabdulaahi ibraahim ayaa faafahinta warkan inoo haya. wararka idaacadda kulmi ay caawa ka helayso deegaanka mooyaale ee ku yaala soohdinta soomaaliya, etoobiya iyo kenya ayaa waxay sheegayaan in gelinkii dambe ee maanta halkaas uu ka dhacay qarax sababay dhimasho iyo sidoo kale dhaawaca dad aad u badan. inta la ogyahay 3 qof ayaa ku geeriyootay, waa 51 qof oo kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib gacmeed lagu tuuray goob boosteejo ah oo gaadiidka laga raaco kuna taala deegaanka mooyaale ee ku yaala soodinta u dhexaysa Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya. deegaanka mooyaale ayaa waxaa degan islamarkaana aad ugu badan qowmiyadda Oromada, waxaana qaraxani kadib maamulka deegaanka mooyaale oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen islamarkaana qaraxa ku eedeeyeen in ay ka dambeeyaan ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya. wararka soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in dadka dhaawacmay qaarkood ay dhaawac u geeriyoodeen, halka qaarka kalena loola cararay ama la gaarsiiyey isbitaalada ku yaala deegaanka mooyaale. wararka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale qaraxa halka uu ka dhacay ay ahayd goob boosteeja, isla markaana dadka ay ahaayeen kuwa aad u badan. ila madax bannaan oo la xiriiray idaacadda kulmiye ayaa waxay sheegayaan in maamulka deegaanka mooyaale ee qaraxa uu ka dhacay gelinkii dambe maanta ay sheegeen in ay ku eedeynayaan qaraxaasi ismaamulka Soomaalida iyo Itoobiya, hase ahaatee wax war ah kama aysan soo bixin dhanka eedeynta loo riday. muddooyinkii dambe ayaa waxaa jiray in deegaanka mooyaale ay ka taagneyd sida la tilmaamay xiisad u dhexaysa Soomaalida iyo sidoo kale Oromada, waxaana tan ay ku soo aadaysaa xilli ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu yahay nin Oromo ah, isla markaana dhawaan mar uu gaaray magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida iyo Itoobiya uu sheegay in loo baahan yahay in la soo afjaro khilaafka ama xiisadaha cawladeed ee u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada. mahadsan cabdiqani. muddo kadib madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaabe iyo xildhibaanada maamulkaasi ayaa maanta safar dhulka ah ku maray wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho. Yuusuf Abubakar Ibraahim ayaa warkan inoogu soo diray magaalada Jowhar. madaxweyne xigeenka maamulka Hirshabelle oo muddooyinkan bawlo shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta ku soo safray wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo maalmahanba ciidamada dawladda ay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka, sidoo kalena ay fariisimo ka sameyseen ciidan ka tirsan AMISOM. wafdiga madaxweyne xigeenka oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa markii ay Jowhar soo gaareen waxaa soo dhaweeyay boqolaal ka tirsan shacabka reer Jowhar oo wadada u taagnaa xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabelle. iyadoona soo dhaweyn kadib uu madaxweyne ku-xigeenka tagay halka uu ka fatahay webiga Shabeelle ee saameynta ku yeeshay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar oo hadda ay ka socdaan dadaallo lagu xirayo.
madaxweyne ku-xigeenka ayaa bogaadiyey shaqaalaha ku howlan xiritaanka meesha uu ka fatahay webiga Shabeelle isagoo ka dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo xiro waxa uu guddoonsiiyey lacago uu ku dhiirigelinayay shaqaalaha intaas kadib madaxweyne ku-xigeenka ayaa warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa waxaana uu ka warbixiyey safarkii uu ugu maqnaa magaalada Muqdisho sidaad ogtihiinba bariyahan waxaan howlo shaqo ugu maqnayn magaalada Muqdisho alxamdulillah ilaahay ayaa mahadda iskale si guulahay noogu soo dhamaadeen howlihii aan u aadnay saakan ka soo baxnay Muqdisho wadadan soo marnay waxaa sidoo kale ciidan nagu soo dhaweeyay degmada Balcad guud ahaan xaqiiqdii waa dadaaleen ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan dhanka amniga bulshaduna waa bulsho abaabulan aad loo dadaalay qof kasta gacan ka geysato waxaan leenahay ilaahay ka abaal mariyo waxaan indhayga ku soo arkay goobtii ay biyo ka fakadeen oo maaragtay labadan habeen lagu howlanay dadaal badan la galishay juhdi la geliyay insha Allah hadii la raali ka noqdo anaguna waa idinku soo biirnay waxaan u soo degdegnay oo maaragtay howlihii aan u baxnay qaarkood iyagoo qabya anuga soo tagna waxay aheeday xaaladda deegaankan ka soo kortay oo fatahaada insha Allah hadii la raali ka noqdo waa ka wada shaqeynaynaa bulshadana waxaan ugu baaqaynaa in la dadaalo oo webigaas dhibaatadiisa oo haday tahay beerihii iyo haday tahay tuulooyinkii iyo wadooyinkii socodka haday tahay intaba dhibaato u keeni karo in meeshii culays ka jiro wixii ay qaban karaan qabtaan meeshii madaxda dalka ugu sarreysa ama madaxweynaha ha noqoto ra'iisul wasaaraha intaba waa la kulmay waxaan kala hadlaayna waxay aheeday masaalixda iyo danaha Hirshabeelle haday amniga tahay iyo haday horumarka tahay intaba waa uga mahad celinaa xaqiiqdii aadan noola soo dhaweeyay wixii aad qabateen waxaan qabanana waa nooga mahad celiyay insha Allah waana garabkiina taaganahay madaxda qaranka yiraahdeen madaxweynaha uu sarreeyo iyo ra'iisul wasaaraha waa uga mahad celinaa garab istaagooda iyo ka warqabkooda ay naga warqabaan maaragtay hay'ado maaragtay danaynaa inay deegaanka wax ka qabtaan waa isku afgaran ay wax alla waxay qaban karaan ayaguna ay qabtaan annaguna insha Allah waa dadaalaynaa aad iyo aad u mahadsantiin waa markii ugu horeysay uu madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ay ku soo safraan wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho tan iyo markii al-shabaab ay la wareegeen qaybo ka mid ah degmada Balcad kadib weerar ay ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidanka AMISOM horaantii bisha Maars maamulka galmudug ayaa sheegay in al-shabaab ay ka saari doonaan deegaanada galmudug kadib markii maanta dib loo furay wadada isku xirta Dhuusamareeb iyo Ceelbuur oo ay maamulayeen al-shabaab Cabdullaahi Warsame Rooble ayaa warkan faafahintiisa inagu soo diray magaalada Dhuusamareeb wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo madaxa golaha xukuumadda Galmudug ayaa maanta si wada jir ah u furay wadada dheer ee isku xirta magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada bari ee gobolka Galgaduud taasi oo gaartay ilaa magaalada Muqdisho waxaana wadadan oo xirnayd sanado badan sabab la xiriira adkeynta amniga caasimadda furitaanka wadadan uu yimid kadib codsiyo ka yimid dadka shacabka ah ee ku nool degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga kuwaasi oo dareemaya culays kaga yimid dhanka al-shabaab Cabdiwahaab Sheekh Yuusuf oo ka mid ah saraakiisha booliiska ee Galmudug ayaa ka waramay furitaanka wadadan iyo qaabka loola socon kara amniga wadadaasi markii hore waxay u xirnayd sabab amni awgood ayay u xirnayd mudday xirnayd maanta marka maamulka dawlad goboleedka Galmudug wuxuu gartay in la furo oo loo furo dadweynaha ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed oo nimanka nabadiidka ay qafaalka u haystaan inaysan culays ku sii noqonin gaadiidkii oo laga xiro sidaa darteed waxaa la gartay in gaadiidku uu furan yahay waxaan kaloo faraynaa gaadiidka isticmaalaya wadooyinka wadadan isticmaalaya oo ama xagga ka imaanaya ama halkan ka baxaya inay soo maraan kontaroolka kii xagga ka yimaadaana inuu kontaroolkan maro kii halkan ka baxayaana uu kontaroolka maro ugu dambeyn Cabdullaahi Faarax Weheliye wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa ka waramay tilaabada xigta ee la qaadayo kadib furitaanka wadadan oo maanta ku beegnaa waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo furitaanka wadadan halbowlaha ah ee muhiimka u ah deegaanka Galmudug ee isku xirta caasimadda iyo gobollada ku teedsan ilaa iyo xeebta siina gaaraya Muqdisho dhanka xeebta ka soo gelaya wadanka waxaan soo dhaweynayaa baaqi halkan laga jeediyay oo aan ayidayaa in wadada insha Allah lagu sameyn doono dib u dhis ballaaran oo gaari doona ilaa iyo xeebta haddii Ilaahay idmo anigoo ka wakiilka ah dawladda federaalka ah waxaan qirayaa inaan ku faraxsannahay soona dhaweynayna tilaabadaas ay horay u qaaday dawlad goboleedka Galmudug wadadaani waxay isku xiraysaa
gobolkan degmooyinkiisa bari oo dhan haddii ay tahay ceelbuur ceeldheer galhareeri ilaa xeebta ayay isku xidhaysaa xamaray halkaa ka sii gelaysaa xeebta marka waxaan rajaynaynaa xoogaaga yarkaa ilmaha yaryarka ah oo khawaarijta ah oo ku dhuundhuumanayana ayaraan wada sifaynaynaa haddii alla idmo shacabka oo madax bannaan oo sida halkaan aan isugu nimid magaalo kasta aan isugu tegayno yaa mar dhow aad daawa doontaan dibad iyo daakhilba dadka shacabka ee ka soo jeeda galmudug waxaan leennahay waddankiinna maalgashada ee waddooyinkiisa dhisa daarihiisa dhisa furitaanka wadadan isku xirta magaalada caasimadda oo ah galmudug ee dhuusamareeb iyo deegaanada bari ayaa culays badan ka qaadaya dadka shacabka ah ee ku nool deegaanadaasi kuwa uu dareemaya dhibaatooyin ay ku hayaan al-shabaab maashalinta cabdulaahi warsame roble dhegeystayaal warkaabina wuxuu idinkaga imaanayaa idaacaddaana kulmiye akhbaaraadka dibadda ayaa inoo soo socda duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono khubaro dhanka kiimikooyinka ah ayaa loo ogolaan doonaa inay booqdaan goobtii la sheegay inuu weerarkii kiimikada ah ka dhacay arbacadii sida ay dowladda ruushka ay sheegtay koox caalami ah ayaa suuriya ku sugneed tan iyo sabtidii balse looma ogolaanin inay booqdaan magaalada duuma weerarkii toobadada bishan ka dhacay ayaa horseeday weerarka dhanka cirka ah oo dowladda britain maraykanka iyo faransiiska ay ku qaadeen xarumo dowladda suuriya ay leedahay amiin hore talaadada ah ayaa warbaahinta dowladda suuriya waxay sheegtay in waxda difaaca dalkaasi ay ka jawaabtay gantaalo lagu soo weeraray magaalada galbeedka ku taala ee xumsi loo yaqaano gantaaladaas ayaa lagu birtilmaameedsaday saldhigga ciidamada ciirka ee jeraad loo yaqaano siday warbaahinta dowladda ay sheegtay balse faahfaahin kama aysan bixin ciday soo gantay gantaaladaasi dhegeystayaal warka habeenimo idinkaga imaanaya idaacaddan kulmiye waa nageynta ciduu sheego waxay dib uga heli karaan barta internetka ku leenahay radio kulmiye dotnet iyo weliba radio kulmiye dotcom dhegeystayaasheena ku sugan magaalada galkacyo ee gobolka mudug waxay ka dhegeysan karaan radio hayaan dhegeystayaasheena cadaado ee gobolka galgaduudna ay ka dhegeysan karaan radio cadaado halka dhegeystayaasheena beledweyne joogana ay ka dhegeysan karaan radio wadani dhegeystayaasheena maraykanka joogana waxay ka heli karaan kalay fm intaan warka xigaan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo mas-uulku hadduu qaldamo hadduu qasnadaha u dhaco hadduu qaato wixii ku jiray wuxuu qarankan ka dhacay ku shuba bangiyada qalaad hadduu dhismayaal qurxoon ka iibsado qaarad kale qoyskiisa halkaa dejiyo halkanna qarashka uga diro qabow iyo raaxa iyo buruuf qaali ah ku jiro ma jiro qodob loo cuskado waxaa qiil looga dhigay dastuurkaa weli qabyo ah qallooc lama toosin karo maxaa qarankii ku dhacay wadigan caraysanoo cammanka tuuraye ma cid baad la dagaashay ciilkaaga dartiis cirkaan marayaa yaceli xanaaqaago haddii ujeeddada jamaalow codsigeenniya haddaanad maqal codkeenna iyaan kaaga dacwoonnaa warka caadka ka qaad anigiyo ciyaalkaba dharkaan calmannaa iyagoo cusub bay noqdaan calal jaxmee carabaha iyo markaad cara yurub u duusho dhar cajiiba noo keen ma intaabaa cabashadu iyo ciilkaa kugu raagay haa waxa la ciqaabayo canaanta adaa mudan yay caroon nabadee warka ciyaarta ka daa dharka caynbacayn iyo adoo cadceed helaya maxaa caalam kale canabe kaaga jira cadceed garuub ciidii dhulka hooyiyo caasimadda dalkeenna caan buu ka noqdo cadceed group cid kastaaba taqaan kow carruur iyo dadka weyne cadceed way ku faanaan oo dhan caqiibadu cadceed u diyaarshay gartay maalmaha caadigiyo markii ciidda la joogo cidhiiri baa ka jira oo waa la buuxaa cadceedo ma leh meel cag la dhigo calashaan dharka yaalla cajiib cadceed group casri bay u tahay garo cadceed group waxaa laga helaa dharka dadka waaweyn iyo dharka dadka yaryar oo cajiiba oo